السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر عليه. waxaan ku balansaneen casharkii abu shujaac ee talaado kasto duhurka minnesota markay duhur noo tahay, oo inkastoo hadda saacaddii isbedeshay, laakiin weli 12 ilaa 12 barkaan soo galayna hadduu ilaah yiraahdo. maanta waa idinka soo daahnay, raalli ahaada. waxaan soo gaarnay casharka 8aad oo ah faslun fi axkaami faraa'id alghusli wa sunanihi, axkaamta la xiriirta waajibaadka qubayska iyo sunooyinkiisa. qofka muslimka ah qofka kale oo gaalka oo muslimka ahna wuxuu kaga duwan yahay. waxaa jiro qubays oo qofka muslimka ay waajib ku tahay inuu qubaysto markii ay dhacaan axdaaf qaarkooda ama arrimo qaarkooda markay dhacaan, waxaa waajib ka ah inuu qubaysto. qubayskaasi wuxuu horudhac u yahay markaasi oo qofka loo ogolaanayaa cibaadadii laga joojiyey inuu samayn karo. sidaa daraaddeeda qubayska waajibka ah waxaa la socdo sunnooyin oo qofka hadduu sameeyo uu ajir iyo thawaab u ka helayo, hadduu samayn waayana aan la ciqaabaynin. fi faraa'idi alghusl, fi axkaamta faraa'id alghusl, qubayska waxyaalaha waajibka ah qofka inuu sameeyo markuu qubaysanayo. qubayskaasna uu yahay qubays cibaado. qofka muslimka ah 3 nooc oo qubays uu sameeyaa. qubaysna waa nadaafad ahaan, waa dhididay, xoogaa wuxuu dareemay inay munaasab tahay inuu qubaysto oo dhididka iyo raadkiisu iska baabi'iyo. waa nadaafad ahaan waa taas. qubays waxaa jiro oo sunno ah, waa qubayska jimcaha oo kale, salaadda intaan la gaarin la qubaysto, ama maalmaha ciidda qubayska la qubaysto intaan la aadin goobta ciidda iyo goobta salaada. nooca saddexaad waxa waaye qubays waajib ah. hadday waxyaalo qaarkooda ay dhacaan oo qofkii waxyaalahaasi laga helo, waxaa waajib ku ah inuu qubaysto, sida inay janaabo ka timaado ama mani ka timaado wiilkii ama gabadhi, ama haddii gabadhi ay caadadii ay ka timaado kale, waxaa ku waajibayo inay qubaysato. axkaamtana hadda marka qubayskii qofka markuu qubaysanayo maxaa waajib ah, maxaa laga rabaa waay. wa faraa'id alghusli, waajibaadka qubayska 3 ashyaa, waa 3dan haddii lagaa helo markaad qubaysanaysid qubayskii la rabay ee waajibka ahaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa ay amreen, waad buuxisay. 1 anniya, waxaa la yidhi waa 3 ashyaa. anniya macnaha waxaa loo jeedaa qofka qubaysanayo in niyo uu la yimaado, oo ah waxaad niyadda ka leedahay qubayskan ma ahan kii sunnada ahaa, qubayskan ma ahan kii aan isnadaafadda oo qofka markuu xoogaa dhidido. qubayskan waxa waaye adoo nadiif ahaa laga yaabaa oo qubaysatay waktigii in la soo gaaray, oo ah gabar maalan iyadoo hadda qubaysatay oo caado laakiin u joogtay, ayaa nusaac kadib laga yaabaa qubayskii waajibka inay qubaysatay. maxaa dhacay? caadadiyaa ka istaagtay. inkastoo nusaac ka hor qubays caadiya qubaysatay oo ah isnadiifin oo keliya, laakiin qubayskan dambe waa isdaahirin waay. marka qofka qubayska istaarinta sameynaya waxa laga rabaa inuu niyeysto. inama alacmaalu binniyaat, xadiidkiisa la soo qaadanayaa ficil kasto
ama camal kasta oo cibaado ah waxaa ka horeeyo niyadda inaad la timaado. marka waa taas waa kow waay, inama alacmaalu binniyaat. laba, waisaalatu nijaasi, waisaalatu inuu maaragtay uu ka saaro ama inuu najaasadii uu ka nadiifiyo. waisaalatu najaasati, najaasadii inuu ka nadiifiyo in kaanad hadday ku hartay ay ahaatay calaa badanihi jirkiisa. macnaha haddii wax najaaso ah jirkiisa ay ku hartay, najaasadaasi waa inuu ka nadiifiyaa. halkan waxaa loola jeedaa isaalatu najaasa, inkastoo culamo qaarkooda ay dhahayn najaasada waxay noqon kartaa najaasa xukmiya ama waxay noqon kartaa najaaso cayniya. xukmiya waxa waaye najaaso inaad maaragtay salaada ay wax kaa hor istaagayaan oo xaalad najaaso aad ku jirto oo macnawi ah, laakiin najaasadii ma muuqato. waxaa ka mid ah maalan qofkii janaabadii ka timaaday, xaaskiisuu u tegey ama xaaskii ninkeeda u tagtay, galmoodkaas ay sameeyeen wax najaaso ah oo muuqda ma laha, marka waa xukmiya. ficilka ay sameeyeen ayaa wuxuu abuurayaa, uu diidayaa markaasi inay salaad tukadaan ilaa ay ka qubaystaan. marka waxaa la dhahaa najaasa xukmiya. af soomaaliya haddii loo bedelo waxaa waaye najaaso aan muuqan. najaasa cayniya waxaa waaye najaasada muuqato. maalan kaadadii waa kaadisay, kaadadii meesha ku harsan, tusaale ahaan meesha horteeda. marka inaad dhaqdo, aada nadiifiso, aad maaragtay meeshii oo dhan aad ka nadiifiso, taasaa loola jeeda isaalatu najaasa. najaasadii meesha aad ka nadiifinaysaa. isaalatu nadiifin annajaasati, najaasadii in kaanad hadday ahaato calaa badanihi jirkiisa hadday ka muuqato ama ay ku hartay. markase labada midkii doonta ha ahaato. wa iisaalu lmaa'i, biyihii in la gaarsiiyo ilaa jamiici shacb, timahoo dhan in la gaarsiiyo, waalbasharati, jirkoo dhan in la gaarsiiyo. marka halkan waxaa loola jeedaa waxaa jirto riwaayad sidna cali laga wariyey oo laakiin nebiga calai salatu salaam loo rafciyey, oo nebiga inuu sheegay maaragtay la sheegay. wuxuu dhahay qofkii, riwaayaddiis wax leedahay af soomaali ahaan, qofkii ka taga meel tin ama timaha qayb ka mid ah ama tinta hal shacra tin keliya qofkii ka tago, si biyahana in la gaarsiiyey ahayd, qofkaasi ma uusan qabaysan, uu dhahay rasuulka alai salaam. hadduusan qabaysan markaasi ma weyse qaadan karo. hadduusan weyse qaadan karin salaad ma tukan karo. marka xadiiskaasi waa sanadkiisu waa saxiix. marka qofka waxaa la rabaa inuu ku dadaalo in iisaalu lmaa, biyihii inuu gaarsiiyo ilaa jamiic ishacr, timahoo dhan intuu gaarsiin karo. marka waxaa la yidhi qofka hadduu timo badan yahay inuu dhexdhexgeliyo, waa farihiisa biyuu ku furaayaa, markaasuu farihiisa dhexdhexgelinayaa. marka inuu aad u dadaal ala rabaa qofka. arrintan arrin sahlan maaha. walbasharta waxaa loola jeedaa jirka, maqaarka oo dhan, meel walba oo jirkiisa ah inuu gaarsiiyo biyihii. marka maxaa waaye meel walba? waxaa waaye ka soo bilaabo madaxi ilaa lugihii, faraha dhexdoodii, meel kastoo biyaha inuu gaaro waay. marka saddexdaas waa waajib waay. marka kow maxaan dhahnay? waa niyadii. laba maxaan dhahnay? waa najaasadii in laga zuuliyo oo laga nadiifiyo jirkii. saddexna in biyaha la wada gaarsiiyo timihii ilaa qayb kastoo ka mida qofka jirkiisa in la gaarsiiyo. marka maxaa sunno ah? intaa qubaysanaysid maxaa sunno ah oo haddaad samayso ajir aad ka helaysaa, laakiin waajib aysan ahayn? waa 5 waay. 5 waaye. 5ta waa sunanuhu. waxaa sunnada qubayska la socota ah 5 ashyaa, waa 5. kow
markaad qubaysanaysid الtasmiya bismi illaahi الraxmaani الraxiim inaad dhahdo waa sunno. rasuulkaa dhahay calayhi salaatu wasalaam wax walboo la bilaabanayo in bismi illaahi الraxmaani الraxiim lagu bilowdo soo ilaahay u barakeeyo. waa koow. waalwuduu in la weyse qaato qablahu ka hor intaadan qubaysan inaad weyse qaadato. way soo aroortay caaisha waxay dhahday rasuulka alay slam wuxuu ahaan jiray markuu qubaysanayo oo janaabo ku qubaysanayo wuxuu ka bilaabi jiray yabda-u fa yaqsilu yadayh. marka waxay soo taxday stabiskii iyo say isugu xigeen weysadii. marka qofkii wuu weyse qaadanayaa marka waa sunno in la weyse qaato intii maaragtay qofka uusan qubaysan ka hor ama gabadhii intaysan qubaysan ka hor. weyse qaadkaasi waajib ma ah laakiin waa sunno, macnaha way fiican tahay, way wanaagsan tahay, qofka ajaru ka helayaa, qofka ilaahay ayaa ku xifdinayo weyse qaadkaas dartiisa. midda saddexaad waa imraaru inuu marmariyo alyadi gacantiisa cala aljasadi jirkiisa. waxaan gacanta inuu saaran biyaha ugu marmariyo. hadduu ku shubo biyaha ay gaaraan waa fiican tahay, waa waajib taas. laakiin inuu si fiican u marmariyo jirkoo dhan oo biyaha u marmariyo waa sunno. waa 4 waalmuwaalaatu inuu isku xiriirsho oy saas daba socdaan. bisikuu dhahayaa qofki waa weyse qaadanayaa, waxaa imaanaysa qubayska jirkiisa oo dhan inuu biyaha gaarsiiyo marmariyo. waalmuwaalaatu macnaheedu waxaa waaye inuu xiriiriyo, qofka jirka markuu biyihii gaarsiiyo. waalmuwaalaatu inuu xiriiriyo oo say isugu xigaan uu u sameeyo. maxaa horeeyo? bismi illaahi niyadiiyaa horayso. waa weyse qaadanayaa, qofkii weyse qaaduu samaynayaa ka hor intuusan biyaha isku shubin. biyuhu markuu isku shubana korkuu marmarinayaa. marka xiriirinta saasoo lala jeedaa inuu isku xiriiriyo uusan kala goynin. waxaa la diidaya qofka inuu niyeysto ama bismi illaahi raxmaan raxiim inuu dhaho halkaas ka fadhiisto oo uu shaah cabo kadib markaasi uu sii wado. maya, haddaad bilaawdo inaad xiriiriso. waa wa taqdiimu alyumna wa taqdiimu inaad hormariso markaad qubaysanaysid alyumna dhinacii midig cala alyusra waxaad ka hormarinaysaa dhinacii bidix. okay. rasuulka alay slat slam waxaa laga wariyey xadiis yuxibu atayaamun fi kuli shayin xataa wuduu'ihi wainticaalihi. wax walba wuxuu jeclaa nabiga alay salaam inuu midigta ka bilaabo isagoo barakeysanayo wax walba. xadiiskan waa jiraa rasuulku uhi alayh salaatu wasalaam, ama rasuulku wuxuu ahaan jiray mid aad u jecel inuu midig wax ka bilaabo wax walba xataa fii wuduu'ihi wainticaalihi. xataa markuu oo u bilaabay masaajidka u joogo kale nin dhanayana uu yahay ama da-diisa kuma xirna, qofku wuxuu ka bilaabaya marka hore inuu hore ka weyse qaato. marka taasna waxay buruufu tahay macdeen u tahay rasuulka alayh salaam inuu midig ka bilaabi jiray. kaana rasuulullah yuxibu wuxuu jeclaa atayaamun inuu midigaysto fii kulli shayin wax walba xataa fii wuduu'ihi. marka midigta halkaana laga keenay xadiiskan. xitaa markuu weyse qaadanayo nebigu wuxuu jeclaa in midig uu ka soo bilaabo. wainticaalihi xitaa markii kabaha uu gashanayo midig uu ka bilaabi jiray. xadiiskaas shaykhaan ayaa wariyay. halkaas waxaan ku soo koobaynaa marka waajibaadkii marka la qubaysanayo iyo sunnooyinka layska rabo marka la qubaysanayo. waana kala saaran waajibaadka. haddaad ka tagto qubayskaaga ma jiro, weysadaada ma jirto, salaadaada ma jirto. dadka badanaa way hilmaamaan in ay qubaystaan markii waxaan la jeedaa in ay kala hormariyaan marka ay weyse qaadanayaan. waxyaalaha qaarkood ay hilmaamaan marka oo weyse qaadka oo kale dadka qaarkooda ma weyse qaataan inkastoo sunno ay tahay. bisinka oo kale dadka qaarkooda bisinka way hilmaamaan. marka waxaa la rabaa inaad xusuusato shantii aan soo sheegay si qubayskaaga u dhammaystirmo. ilaahay subxaana wa taala naga aqbalo qubayskeenna, weysadeenna, ducadeenna. allahuma aamiin, allahuma aamiin. ilaahay idin xifdiyo,
ilaahna wada xifdiyo. Wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.